ismaqal iyo daawasho haboon halkani waa channelka halbeega wararka waxaad ku soo dhawaataan warka warbaahinta qodobada aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqonaya debley hubaysan oo dhalinyaro ku toogatay gudaha magaalada Muqdisho faahfaahin kala duwan ayaa arintaasi laga helayaa maamulka Somaliland oo wax ka soo saaray ciidamadii ugu badnaa oo u galay maamulka Puntland Somaliland maxay ka tiri goordhow faahfaahinta filo al-shabaab oo bilaabay qorshe qudaarta Muqdisho lagu jarayo qorshahaasi muxuu yahay yaasa ka dambeeya waan idinla wadaagi doonaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo shir gudoomiyay kulanka gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir kulankaasi waxyaabo xasaasi ah ayaa looga hadlay maxaa kamid ah waan idinla wadaagi doonaa mid kamid ah guddigii uu magacaabay محمد علي عالة أو يسعزلي صابته أيان يدلا وذاك دونا حسن علي خيري يفدي بلارنه وقامين يوم بحيدلك مريكنك سفر كيس محوصلة كوهيا واندين سو قدبينينا قدر بضا ياندين سو قدبين دونا صاحب بيال تاريخ دو حايكو بيغان تاي تضبي توانكا بيشا توبانات أكتوبر لبداكم سغالي توان وديار قروب صاحب بيال ففاينتا قدر بضي عد مقاشين ودميستران جنال كان هالبيغا وركا سبسكرايب علامada kambalka furta muuqaalkeena saaxiibayaal si share gareeya ayna ku bilownay waxa faahfaahin kala duwan ka soo baxayaan saddex wiil oo dhalinyaro ah oo lagu diray gudaha magaalada Muqdisho saddexna ayaa waxa xalay lagu diray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib markii lagu weeraray bastoolado ayagoo saaran bajaaj saddexdan ayaa waxa lagu diray inta u dhaxaysa labada buunto degmada Waabir ee gobolka Banaadir gaar ahaan meel ku dhow maqaayada caanka ah ee Bar Haydafin dilkan ayaa waxaa geystay rag hubaysan bastoolado kuwaas oo dilay kadib goobta isaga baxsaday ilaa haddana ma jirto cid dilkaasi loo soo qabtay waxaana goobta halkaasi soo gaaray ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo baaritaano kala duwan halkaasi ka sameeyay wararka ayaa waxay sheegayaan in goobta ay soo buux dhaafiyaan ciidamo booliis ah iyo kuwa degmada Waabir kuwaas oo howlgalo kala duwan halkaasi ka sameeyay warar hoose aynu helayna waxay sheegayaan raggan la toogtay kamid ahaayeen hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya kuwaas oo la sheegay in dilka kadib laga qaaday bastoolado ay wateen sida saraakiisha amnigu ay sheegayaan ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda dilkan balse dilal cayn ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa mas'uuliyadooda soo ritay dagaalyahanada hubaysan ee xarakada al-shabaab kuwaas oo dagaal xooggan kula jira dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay ammaanka magaalada Muqdisho waxa uu ahaa mid faraha ka sii baxay waxaana halkaasi ka dhacay dilal ay geysanayaan shakhsiyaad aan heybtooda la garanaynin walow marka dambe qaar ay mas'uuliyadda dusha u ritaan dagaalyahanada hubaysan ee al-shabaab dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegaysaa maalmihii la soo dhaafay in amniga magaalada Muqdisho uu ahaa mid soo hagaagay walow ay jiraan toogashooyin meelaha qaar ka dhacaya maamulka Somaliland waxay war ka soo saareen ciidamo gadoodsan oo ku goostay maamulka Puntland war ka soo baxay Somaliland ayaa waxaa looga hadlay ciidamo ka tirsan kuwa howlgalka fuliya kuwaas oo ka goostay deegaan ka tirsan gobolka Sool kuwaas oo galay maamulka Puntland wasiirka cadaaladda maamulka Somaliland Cabdirasaaq Cabdi Saalax ayaa waxa uu sheegay in ciidamadaasi aysan markii horeba ka tirsanayn maamulka Somaliland waxa uu sheegay in aysan maamulkooda diiwaan gashanayn sidoo kale waxa uu meesha ka saaray in dhinaca Puntland ay ku biireen ciidamo kuwaas oo ka soo goostay maamulka Somaliland waxaana uu beeniyay in ciidamadan ay yihiin ciidamada maamulka Somaliland ay ku tashtaan waxa uu sheegay in ay yihiin kuwa u badan askar iyo jabhad ka goostay maamulka Somaliland dhinaca kale wasiirka ayaa waxa uu beeniyay inuu jiro ciidamo Somaliland oo ka degay deegaanada maamulka Puntland maalmihii la soo dhaafay waxaa deegaanada maamulkaasi Puntland ku sii qulqulayay ciidamadii ugu badnaa abid kuwaas oo ka soo baxaya safka maamulka Somaliland walow madaxda ugu sareysa maamulkaasi ay beenayaan arintaasi ra'iisul xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheeyre iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa waxa ay u ambabaxeen dalka Mareykanka ra'iisul xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheeyre ayaa waxa uu xalay safar shaqo ugu ambabaxay magaalada Washington ee dalka Mareykanka waxa uu halkaasi ka qayb gali doonaa shirka sanadlaha ee bandhiga adduunka oo hay'adda lacagta adduunka IMF ay qabato
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa markaas halkaas uu tago waxa uu kulamo kala duwan halkaas kula qaadan doona madax heer caalami ah oo halkaas lagu casuumay waxaana halkaas uu ka qayb geli doonaa shir heerkii sareeyo oo wadamada caalamku halkaas isugu imaan doonaan. xasan cali kheyre ayaa waxa uu bangiga adduunka dalban doonaa iyo hay'adda lacagta adduunka in laga cafiyo deymaha Soomaaliya lagu leeyahay xilli dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay waday in Soomaaliya laga cafiyo deymaha caalamku ku leeyahay. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xasan cali kheyre ayaa waxaa laga yaabaa in halkaasi uu ka jeediyo khudbad taariikhi ah uu kaga hadlayo horumarka iyo hiigsiga Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha ka yahay ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay wadadaalo xoogan oo lagu dardar gelinayo ama lagu nidaaminayo maaliyadda Soomaaliya waxaana dowladda haatan jirta ay ku faantaa in ay meel wanaagsan gaartay maareynta maaliyadda Soomaaliya. kulan ay yeesheen gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa shir gudoomiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa waxa uu shir gudoomiyay kulanka degmooyinka gobolka Banaadir oo toddobaadkii mar la qabto kaasoo looga hadlayo xoojinta horumarinta caasimadda iyo isla xisaabtanka waxaana uu isugu yimaadeen qaar ka tirsan maamulada ka jira degmooyinka gobolka Banaadir iyo madax kale. qodobada shirkan looga hadlay ayaa waxaa kamid ah amniga kaasi oo mashaqo xoogan ay ka taagan tahay xisaabtanka waxaana uu isugu yimaadeen qaar ka tirsan maamulada ka jira degmooyinka gobolka Banaadir iyo madax kale. qodobada shirkan looga hadlay ayaa waxaa kamid ah amniga kaasi oo mashaqo xoogan ay ka taagan tahay waxaana gudoomiyuhu sheegay in la dardargeliyo amniga. waxaa sidoo kale uu ka hadlay dhaqaalaha, nadaafadda, isboortiga, canshuuraha iyo waxyaabo kale oo hoos yimaada degmooyinka gobolka Banaadir shaqadan inay qabtaan looga baahan yahay. duqa magaalada Muqdisho ana gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish ayaa waxa uu kula dardaarmay madaxda degmooyinka gobolka Banaadir inay dardargeliyaan si hufan ula shaqeeyaan bulshada kala duwan ee ku nool gobolka Banaadir si loo gaaro himilooyinka ay higsanayaan. waa sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. mid kamid ah guddiga uu dhawaan magacaabay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed cali Caadle ayaa iscasilay. maxamed abshir nuur oo kamid ah xubnaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha ee maamulka Hirshabelle oo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle maxamed cali Caadle ayaa xilkaasi waxa uu iska casilay. waxa uu sheegay in xubinimadiisii guddigaasina uu isaga baxay. shir jiraad warbaahinta u qabtay degmada Balcad ayaa waxa uu sheegay in aanan looga tashanaynin xubinnimada loo magacaabay islamarkaana uusan wax shaqaay ku lahayn sida uu sheegay waxaana uu tilmaamay in guddigaasi uu isaga baxay. mas-uulkan ayaa waxa uu tibaaxay in markii uu arkay warqadani kasoo baxday maamulka Hirshabelle gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha aysan ogeysiinin waxaana sheegay in meesha ay ka saartay dowlad goboleedka Hirshabelle beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayuu ugu baaqay inuusan kamid ahayn guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha dowlad goboleedka Hirshabelle. magacaabista guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxaa horey uga soo horjeesay odayaasha iyo waxgaradka mid kamid ah beelaha ee gobolka Hiiraan. maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray isqabqabsi xoogan oo ka dhashay guddigaasi uu magacaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Hirshabelle Maxamed cali Caadle waxaana qaybo kamid ah bulshada gobolka Hiiraan ay sheegayaan in ay guddigaasi aysan aqoonsanayn qaada'aana waxayna sheegeen in aysan guddigaasi matarin xubnaha ayaga ku matala. waxaan ilaa hadda mas-uulkaasi booskiisa soo buuxin wasiirka arrimaha gudaha waxaana jirin ama aan la ogeyn in mas-uuliyiin kale oo guddigaasi kamid ah ay iscasili doonaan iyo in kale. maamulka Hirshabelle ayaa waxa la sheegay inuu dardargelinayo ama uu damacsan yahay dardargelinta ama hirgelinta guddigan si ay uga shaqeeyaan howlaha loo imaday balse waxaa jira culeysyo fara badan oo ka imaanaya beelaha dega
deegaanada dowlad goboleedka Shabeelle kaasi oo ku aadan qaabka guddigani loo dhaqan geli karo. warkii saaxiibayaal ka imaanay warbaahinta halbeega wararka intaasi ayaan ku soo koobaynaa. nabadgelyo isma dhaafno. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.